السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ku qabanaynaa silsilad suugaaneedii ka hadlaysay ama ku wajahnayd waxbarashada iyo kobcinta iyo kor u qaadista aqoonta bulshada. Waxa soo furay aboon xirsi dheere xirsi Yuusuf Shalkhbeen wuxuu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim bilowgii aadmigii iyo markay beermeen nafluhu jahligu u baahsanaa dadkuna baadida ahaa banjoogta ugaadha iyo sidii bahalo kale intay boholaha qotaan ilaah ka badbaadin jiray bulshadu way qaawanayd ma jirin biliciya xarago bustiye maral lama aqoon cunniyo beerana ma jirin midhaha geedaha ka baxa ayaa u ahaa baruur rabbina soo samata bixi waqtiga xilliba isbedelay dareenku baraarug noqoy bisayl iyo garasho timi hirgoortii laga baxoba mid kale la bidhaasay oo si ay dhibta uga baxaan cilmiyo barashada la aad inta dhabalaysinkii markii jiil soo baxoba haddaan jiil kala bedelin miyaa PhD iyo dhaqaalaha kuwa bartiyo diktoorka bukaanka qalaah ilaa heer beresentiyo wasiirada baawr kale aqoonyahan lagu baxsado miyay heli leed bulshadu tacliinta haddaan la baran allah wax badbaadiyay haddaan baal kale u galo waxbarashadu waa muhiim naftaadoo baadiyay mugdiga ka badbaadisaa tacliinta haddaan la baran adduunku ma soo baxeen bariga beeraha ku yaal barwaaqada lama heleen badaha ma adeegsadeen hawada sare uma baxeen haddaan baal kale u galo ilmaha way tababartaa idaabta ayay bartaa dhaqsay u barbaarisaa xumay ka badbaadisaa samay kugu biirisaa bisayl baa laga dhaxlaa waxay bahwadaag la tahay barwaaqiyo nabadgelyada baraa la adeegsadaa buddige noloshay u tahay afkoodiyo bay'adiyo islaamnimo buuxda iyo dhaqanka ku barbaariyo manhajka caruurta bara abiyo hooyoy waxbara wiilal iyo gabdhaba halka markii soo dhigay xirsi dheere xirsi Shalkhbeen waxa soo galay nin la yiraahdo Cabdullaahi Cali Ibrahim Geelle wuxuu yiri xirsow barashada cilmiga bayaanada lagu wajaho buugaagtooda aad qortaa beejkooda daabacdaa baraarujiyaad ahayd bulshada ayahooda jecel billadii waa geesinimo baydari waa shiishaqaan bayloodkuna waa hawada baroorkuna waa fardaha baloley waa ciyaar ninkii badiyaana tuma badana wiilkii yaqaan waxbuu kala soo baxaa bishaaradu waa khabaar bilkhayr baa laga ceshaa bilaabaya waxaan ku eri baridadu waa guddoon annana barinaya salaam barbaartii golaha iyo bulshada Soomaaliyeed bogaadina iiga geey mar kale baaq baan u diray bisaylkeeduna cad yahay runtuna ay barxlaadahay mar baan baabuurku jirin boqoluu faras ahaa buntu lama qaadan jirin birta la afaysan jiray baraagaha lama aqoon beebkan shalay buu ahaa bogga lagu dhaansan jiray buftiyo mar lama aqoon biciidka kaymihiyo barda la ugaarsan jiray barkimo geed bay ahayd buulkuna caws buu ahaa bariisada soo daadiyo banuhu ku soo maraan boostuna socod bay ahayd bil iyo laba ka maqnayd bukaan lama qaadi jirin baruur iyo caano geel booguhu ay necab yihiin baridu ay kow ka tahay ayaa lagu baanan jiray dab baa lagu beegsan jiray waxay kaga soo baxeen bisayl iyo wadadal beeraha waa taa la qoday babay iyo muus la helay badweyn noolaha ku jiray intay kala soo baxeen bakharada soo dhigeen badhkoodana dhoofiyeen batroolkii loogu tagay inta soo baacarlada bilgeyrada samada tagay dayaxa ballaha sariya bambaasa ka soo hadleen gantaalaha Britanka bayaan la isugu wajahay hawada kala boobayaan badaha la isugu hirdiyay bariga hadalkeedu yaal barqada muuqaalka hore baraha waa daawatay miyaan been kugu sasabay inagu bilow baynu nahay bartii baan taaganahay waxaan berri iyo tashiga bareeraha uga socdaa qabyaalada baahday iyo haddaan buntuq la iska dhigin haddaan bulshadeenu kicin haddaan diintii la baran haddaan buug iyo tacliim baraha loo doonanay suugaan loo soo bandhigin bilaash baan ku hadlayaa jahligu waa baadinimo bukaan lama dheehan karo baroortuna waa halkii boqol lagu dhaansadiyo bari ay ku dambeynayaan baahidu waa taagan tahay dhulkana baadkii dhamaa bus iyo siiga ka kacay bulshada lama socon karaan adduunyada Britanka in laga baaqadaan hubaa badbaado Allah haye aakhira waa loo baqaa rabbiga aan baahane isaga loo baahan yahay adaa boqoreenna bixi bishaarana noogu deeq jannadu waa noo bil khayr baraariyo waa samaan burjiga aadna hooysaa bariyo yaasiin akhriyay bariyaan kugu tuugayaa ducaan kugu beegsanaa markay boodee dhacdoba markay boodee kuftoba adaa boogaha u dhaya bogsiiman kaafilna barwaaqadu waa midnimo buug iyo qalin ba xukuma halka markuu geel soo dhigay waxa soo galay in la yiraahdo abwan aw farax gure oo lagu naanayso jibin wuxuu yiri
xirsiyow bukaan kuguma dhaco boosa kaa dhigay baahi ee bahay kuma tusiyo xaal busaarada ee baraare iyo khayr ee bahay badanka kuu saar aamin baaldahaba gale gabayada ka burqanayaaye waa lagu baraarugay tixdii biligu saarnaaye aniguna bishaarada dambaa soo bandhigaya baada noloshu waa inaad aqoon baahsan leedahay waa inaad cilmiga beegsataan barada uu yaale baabul jahliga weeye iyo baarka ku cawee hawsha maanta ka baaqsataa waa bar kugu taale bareenkoo la tuujiyo caqligu barako weeyaane balwad iyo ninkii qaadka cunay baasi kari waayahay baahaysi kuma saacidiyo biilo ruux kale baryo iyo shaxaad kuma taraan baawar iyo xoogi maalintii shaqadu soo baxdaa biritan jooga qofkii buundo hore keenay baa loo ballamiyaa badow looma yeero iyo midaan biidna ku tarine bangiyada waxa loo xulaa buugga kii siday waqti beer daroobay nafluhu badi shallaayaane basanbaasku waa meel cidlaa inaad ka buuqdaaye boqolaha hadhkii soconaya iyo bacadku waa gul boqolaal iskuul baa ka furan beledka Soomaali bari wixii anfici ruuxu waa inuu bislaystaaye waxaan shacabka ugu baaqayaa barasho weeyaan halkaas ayuu soo dhigay aw faarax gurana waa silsilada waxbarasho qaybteedii koowaad qaybta labaad saddexaadna waa ka wada socon doonaa jalladno wada soo gudbin doonaa waa Cabdullaahi Cali Ibrahim Geelle wada la socodsiinayay iyo goliyaha abwanada afka iyo dhaqanka shanta Soomaaliya oo magacooda loo soo gaabiyo gaad shanza